aad iyo aad u aqaan codadka ka aqaan deeqo saacid wakana waa ku salaam saacid deeqo waa ka qaadan deeqo seetay oo fiican ma sha Allah si kale ima garanis ma sika codkaada aad iyo aad baan garanayaa aniga qofka jecel bana codkaada iyo muuqaan intaba waan ku garanayaa bal deeqo anaga waan weydiinay qaabka isku weydeen waa kana deeqo wayna la soo xiriirtay waa gabar fiican wallahi aad anigu raadinaysay adiga lambarkaaga heli weyn markaa ay soo helnay markaan ku soo wacana waxaan ku iri deeqo wayna la joogto waxa uu tiri waa taagana waa fariisana ha ugu ciyaarin ma ku ciyaareen xaqiiqa kala hadlay waatan gabadhii haye deeqo zaid haduu ku xaqiiqsaday si fiican wajigan uu arki doonaa oo maaragtay insha Allah inkastoo aad tirmeeyay wajigan lagu arko ma jecli bal ka wara dareenkaaga maanta wallahi dareenkayga 10 daqiiqo oo 5 daqiiqo ee murugtahay 5 daqiiqo farxad ay tahay waan dareenkayga ku qiyaasi karaa waa ano soo wacay iska joogo waxana aan u maleeynin gabadhi baa la helay markaa tiri waa u maleeysan aniga wallahi waa u maleyn waa in xitaa 100 mar aan ku riyoonay camalan moodo ilaa aan soo kacay wicitaanka si fiican ku fiiriyay waxa shir inay been abuurta laga yaabaa waxa soo xadhici kara maaha aniga darama markaa waxa shir maadaama la markaada meesha la soo saarin way noqon kartaa inay aydi tahay haddaan xasantaa wali deertaan xasan deeqada runtaada kula joogto deeqa waxay noo sheegtay waxa isku weydiin inay safar ay aaday kadibna telefoonadii problem kaga dhacay markii muuqaalka aan ka duubnay dad fara badan qoraalo ku soo qorayay muuqaalkii maxaa kala kulanto falcelina wallahi ani muuqaalkii in horta family-gii horta waa isku dhacsanahay way mataana way ila wada dagaaleen oo shala anigoo ay leeyihiin naag baad ka daba waalatay saan waayo waa waalan tahay qof waalan baa tahay habeeb hal geeyo ya aniga dana muuqaalkii la sii arkay muuqaalkii markii la sii arkay wallahi in xitaa ciidan la isoo kaysto oo mataana aniga habeeb baa la geenaya hal la qabto ama gobol baa loo dhiibay ku gobolka jooga xitaa hal soo wada ay leeyihiin walaal maxay iga rabtaan aniga habeen baa marka boorsadii iska qaatay hadda magaalada dhudhuma mashallah iska jooga wiilal oo dhalinyaro asxaab iska nahay family habeenba isoo hidaa guri habeen marka guriga isoo hidaa family marka arkay ninka waa waalaya saan waayo oo walba shalay dukaankiisa door cilay uga dhaqaaqay saan waayo xagga waa ninka sidiisa waa waalaya habeeb baa lagu tuuro gabigiisa waxa naag waa la jeclaan jiray saan ma loo yarin jirin adinka waxaan ku yiri ima dareemi kartaan balse mar waa rajeenaya aan ku yiri haday noo shahay in bari kamaalayn farxadeedii iyo waxa aan intaas oo dhan aan idin tuso bari deeqo oo ila joogto haday noo shahay dhamaan ama farxadeeda idin tuso maanta murugtii waxa mataanay waalintii leedihiin macnaha naag buu jaalaya xaq waa dad ay fahmeen baatiin dadkii dad ii xigbaantiin oo waalidkayga wayahay deeqo wiilkan intaas dhibaatada madaxaaga u maray adaatan waa sheegtay waxa tiri hadii shalay oo dad qof waalan la mooday maanta caafimaadkiisu u yimid aad iyo aad haye intii waxaan hadda kale way dhacday qadarta rabbi weyn ku dhacday laakiin hadda waxaan rajaynayaa inay wax walba oo keen noqon doonaan oo farxadiisa aan ka qayb qaadan doono insha Allah ehelkiisuna ay noqdaan kuwa garab istaago oo na taageera mar walba waa kaas oo noloshiina hore u wadataan jecelkiina dad fara badan oo waxaa jiray sheekada dhanba dhalanteed mooday deeqoy oo xitaa aniga qudheedu been ku sheegi maayo boqolkiiba 50 sheekadan ka aaminsanaa sax oo yarkan way ugu soo noqnoqdo mooyee boqolkiiba 100 ma aaminsanayn sax haddana dhalinyaro oo ilmeynaya oo aan isudii ka tagaynin oo maalin kasta imaanaya way u adkaatay inaan maalin walba iska dhaho maanta se waxa ii muuqato sheekadu inay tii ka xaqiiqo badan tahay bal dareenkaaga iyo dareenkiisa maanta hadduu farxad wada yahay sidee isleedahay hawshan hore u wadi karteen wallahi waxaan isleeyahay horta farxadeena lama soo koobi karo waxaan isleeyahay wax walbana farxad bay ahaan doonaa anagana dee buufiskii waxyaabihii kale oo igu jirayna inaan ku horumarin doono isaga farxadiisa iyo mustaqbalkeena rajaynaya